ka naga daawanaysaan ku soo dhawaada waraysi aanu la yeelanayno musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxa uu ahaa wasiirkii hore kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya ee dawladii uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda se waxa uu leeyahay kursigaas ayaan u tartamaya ku soo dhawow telefishinka SMS runtii macnaha aanu kaaga wareysan doono waxyaabo badan waxaan rabaa waad is sharaxday in ku dhawaad 40 ruuxna way is sharaxeen marka aad eegto qaab kale isu sharaxay iyo tirada dadka marka aad eegto maxay kula tahay dhinacaaga inaad ka heli karayso bismillaahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa xasan aad baan kuu salaamayaa waana kuugu mahad celinaya inaad fursaddan siisay inaad waraysi siiso waxa kale oo aan kuugu hambalyeynaya inaad channel cusub furatay iyadana waa kuu hambalyeynaya waxa kale oo aan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed salaamo meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan su-aashaadii xasan u soo noqdo waad ogtahay oo saad uga warqabtid doorashada muddo dheer bay nagu dheeraatay oo soo jiitantay ilaa mahadii hadda waxaan u dhownahay gabagabadii bisha 15keeda oo axadda baan rajeynaynaa inay doorashadii dhici doonto anigu waxaan isu sharaxay saan hore waraysiyaashii hore kuugu sheegay waddankeenu marka laga soo bilaabo dowladdii carta 2000 sanadku markuu ahaa 22 sanad hadda joogno carta markii laga soo dhisay waxayna soo maray 5 dowladood 3 ku meel gaar ah iyo 2 joogto ah inkastoo oo runtii horumar meelaha qaarkood la sameeyey laakiin arrimihii ugu waaweynaa oo waddankan ragaadiyey iyo dhibaatooyinkii gaamuray weli xal looma helin Soomaaliya oo dhanna waa ka dheregsan tahay waana 5 haddaan si dhaqsaa u kormaro waa arrimaha amniga oo weli la og yahay maanta weli amnigeennii inuu ka sii daran yahay mooyaane horumar ma sameyn arrinta labaad oo dadkoo dhan og yihiin waddankeena garsoor madax bannaan oo cadaalada kama jiro arrinta saddexaad oo muhiim ah dadkeenii gaajaa dishay shaqo la-aan baa dishay welina saboolnimadii si xoog leh bay u jirtaa arrinta kaloo afaraad waa arrinta musuqa weli musuqeenu xukuumaddan haddii la eego maaragtay waxay qabatay iyo noqotay inuu ka badan yahay mooyaane kama liito kuwii hore ta ugu dambeysa ugu muhiimsanna ummadda Soomaaliyeed waddankan milkilaha Soomaaliya waa shacbiga Soomaaliyeed waa dadka inay ka taliyaan ayaha waddanka waxa doorashada dadban oo 22 sano ku jirno maalinay ka fool xumeed maanta ma jiro Soomaali weyn oo dhan waa ka dharagsan tahay sidii qaabkii foosh xuma iyo wixii ka dhacay marka haddii ay doorasho dadban ku jirno mar dambe waddankan qarannimadiisa iyo madaxnimadiisa iyo jiritaankiisa khatar weyn buu ku jira marka 5 arrimood weeyaan anigu 5 arrimood aan u arko inaan murashax noqdo inta aad sheegtay oo aad leedahay dhibaa jiray musuqmaasuqa jiray waxyaabo badan jiray madaxweynihii xilka hayay 5 sano oo haddana maanta musharaxa waxa uu ku doodayaa inuu dalka horumar fiican gaarsiiyo marka fikrad soo kala horjeeda Soomaa waa fahmay madaxweynuhuna sidaas u yiraahdaa laakiin ummadoo dhan waa u jeedaa xaqiiqada jirta marka madaxweynuhu haddii uu isagu xaqiiqada iska indhatirayo de isaga khusaysa laakiin anigu waxaan arkaa Soomaali weyn oo dhan waa u jeedaa dhibaatooyinkii waddankan ka jiray haddaan meel fog bay eegin xasano soo qabo waddankan abaar weyn bay ku jirnaa oo dad badan xoolihii ku dhinteen dad badan ku dhinteen weli miyaad aragtay madaxweyne waddankan ah iyo ra'iisul wasaare intay tageen xeriyihii iyo goobihii ay tageen dadka Soomaaliyeed ku tabaalaysla waxa aan mashquul ku nahay siyaasad iyo wax kale iyo kursi iyo waxaan qaato ummadeenu waa baabay dadkeeni wax u gurmada ma jiraan marka arrimahaas oo dhan waa arrimo nasiib darro way adigu dawladda qayb ka ahayd wasiir baadna ka ahayd waxa soo dhan intay dhacayeen waa aad joogtay walow markii dambe xilkii laga qaaday ma arkaysay markaas waxyaabahan aad sheegayso anigu xasan dawladda saad la socotid sanad iyo bar baan ku jiray 18 bilowgeedii baan ku jiray anigu arrimahan xoog oo doorashooyinkan iyo goboladan iyo waxay boobkan iyo waxa anigu ma joogin anigu waa ogeed sababta aniga xilka la iga qaaday wuxuu ahaa waddankeenu dhibaatooyinka ugu waaweyn oo dib inagu haya waa kalluunka sharci darradayna looga xado dadku waxay ku qiyaaseen ilaa 600 oo milyan oo dollar kalluunka sanad kasta in laga xado anigu waxaan wasiirkii ugu horeeyay Soomaaliya oo maraakiib badan oo waddankeena sharci darro ku imaan jiray intaan maaragtay qabtay
wadanka Thailand la yidhaaho maxkamad la geeyey maraakiibta aan qabtay oo sharci darro wadankeena ku jooga marka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii waxay iyagu damc badeen ama siyaasad ahaan u arkeen maamul goboleedkii wadanka joogay oo waxaa sharci darrada bixinayay oo wadankeena dhibtaa ku hayay in maraakiibtan ka qabtay leeyihiin u sii daa siyaasad ahaan gobolka ma rabno inaan ka caraysino waxaan moodayay wadankan inuu markii madaxweynihii iyo ra'iisul wasaaruhu u dhaarteen oo kitaabka jaamaca gacanta saareen in ummadda Soomaaliyeed danta ummadda Soomaaliyeed ay tahay waxay u shaqeynayaan marka haddaad u shaqeynaysa qof maamul goboleed joogay oo dhaqaale iyo wax shakhsi uu doonaya oo maaragtay ganacsi oo waliba sharciga wadankeenu dhan jabiyay de waxaan u arkaa taa nasiib darro ahayd markaana wax kaloo dhib markaas laakiin madaxweyne farmaajo waxaa kaaga horeeyay ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo asagu ahaa ninkii dhan oo madaxii fulinta ahaa marka waxyaabahaas aad sheegaysid iyo dhibaatadaas aad arkaysid isagoo miyaadan u gudbinin oo xilligaasi uu ra'iisul wasaaraha haddana musharax waaye ma u gudbiso ma tiri war waxaan iyo khaladkaanan u jeednaa aan kuu soo kooba nuxdeeda ku siiya maraakiibtan markaan qabanayay waxaan kala tashaday ra'iisul wasaaraha labadeeda go-aan wada gaadhnay in la qabto muddo yar ka bacdi madaxweyne farmaajo baa waa ogeed madaxweyne xaaf markii lagu caleema saarayay galmudug soo ma xasuutid cadaado markaasuu isku arkay madaxweynaha Puntland oo isagu ahaa madaxweynihii maraakiibtan aan kuu sheegayo iyagu sharci bahladaa bixinayay markaas ciidani ba ahaa may waxa Cabdiwale Gaas buu ahaa ninkii madaxweynaha marka markuu soo noqday aniga go-aankii wax wada gaadhnay baan ku yidhi ra'iisul wasaaraha marka madaxweynihii wuxuu yidhi madaxweynihii kalaan soo arkay Puntland aad baan uga cadhaysan yahay marka maraakiibtii laga qabtay ha loo sii daayo ra'iisul wasaaraha go-aanka waan wada gaadhnaan ku yidhi marka ra'iisul wasaarihii wuxuu yidhi dee dhib baa jirta madaxweynihiina wuxuu rabaa in codsigaasa inooga yimi marka farmaajo nagu yimid uu leeyahay codsi maaragtay waa in la sii daayaa marka wuxuu yidhi haddaan hadalka kuu soo ururiyo maraakiibtan waxay yidhaaheen dad maal gashaday oo Puntland joogay baa xoolo badan uga luntay marka dadkaas xoolaha badan uga lumeen oo maraakiibta aan qabtay waxay leeyihiin de meena ka warqabanaya sharcigii wax saas oo kale marka wuxuu igu yiri ra'iisul wasaaruhu bal xal ii keen arintaas dadka ganacsatada oo le maraakiibta la qabto waxbayna yeelayeen wasiir xal ii keen halkaan u keenay wuxuu ahaa dowladda Thailand baan la hadlay waxaan ku dhaanay maraakiibtaas qabta xaraasha shixnadii saarneedu ilaa 5-6 milyan lacagtaas oo dhan marka laga gooyo kharashka maxkamadda bangigeena dhaxal lagu soo shibaya lacagta marka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ku yidhi ra'iisul wasaare adiga iyo madaxweynaha baa labada oday wadanka ka taliya labadiinu haddaad go'aamisaan inaad magdhow u siisaan lacag oo lacagta inoo soo xarootay idinkaada iskale oo siyaasadaas moogta guud idinka leh laakiin anigu waxaan rabaa qorshihii aan waday oo aan rabay badda inaan ilaa 2 bilyan oo dollar waa bilyanku waa 1 milyan oo waa 1 bilyan weeyaan 1 milyan weeyaan bilyanku marka lacagtaasi qorshihii aan rabay bay hor istaagaysaa haddii maraakiibta la qabto marka xal waa inii keenay marka iyana ku dheeraani waxaan kuugu soo ururinaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay ku go'aansadeen in arrimo siyaasadeed oo shakhsiyan oo gobol ay la xiriirayaan inay uga muhiimsan tahay hawshan anigu ummadda Soomaaliyeed u hayay sidaasaan xilka uga tagay waaya adigoo mahadsan waxa kale oo jirtay in maraakiibta badda China kale la leeyahay oo sanadkiiba waxa lala galay heshiiskaasi maxaad kala socotaa oo la leeyahay waliba kharash yar ayaa lagula heshiiyey maxaad kala socotaa saad loo socotid xashan wadankeenu waa federaal baan qadan nidaamka federaalku wuxuu leeyahay khayraadka wadanka waxa iskale inay wada qaybsadaan dowladda federaalka iyo 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir markaana haddaan khayraadku waa 2 nooc mid waa kalluumaysiga iyo badda khayraadka ku jira ka kalena waa macdanta iyo batroolka marka waa labada khayraad wadanku leeyahay anigu wasaaraddan joogay sharcigeena waxa weeyaan haddii shatiyada la bixin doono oo dakhliga ka soo gala wayna heshiis wada galaan 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo federaalka oo boqolkiiba qaabkii loo qaybsanayay wayna ka heshiiyaan heshiiska marka la galo markaas anigu awood u leeyahay wasiirkii federaalka oo maaragtay kalluumaysiga inaan dunida shatiyaal ka gado marka dariiqa waa in la maraa marka haddaan anigu ku soo ururiyo anigu markaa waxaan bilaabay 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir
waa isugu yeedheen wasiiradoodii kalluumaysiga muqdisho aan isugu nimi bilowgii xukuumadda bishii abril 2017 marka waxay wadnaba heshiis baan gaadhnay oo 5 maamul goboleed madaxweynayaashoodii iyo gobolka banaadir waxay saxeexeen inaan shatiga bixin karno markaana dakhli soo gali karo anigu markaan heshiiskaas soo diyaariyey oo diyaar ahaa oo markaa aan rabnay inaan shatiyadii gadno oo dunida la hadalno markaas aniga xilka laga qaado marka wasiirkii aniga iga dambeeyay kalluumaysiga wasiirkaasaa markaa wixii aan u soo diyaariyey bilaabay inuu shatiyadii bixiyo qorshahan anaku u soo sameynay oo rabay shatiyada lagu bixiyo qorshe waxaa lacag badan aan doonaynay iyo maraakiib xadadan bay ahayd waana og wixii oo dhan macluumaadkii wasaaradda kalluumaysigu yaalla marka sida loo bixiyey iyo maraakiibtan xaaluufisay iyo musuq badan oo laga soo sheegay waa arrimo aad ka warqabto maxaad kala socotaa adigu kulleyba waa maxaad kala socotaa yearly lacagta lagu bixinayay shiinaha ay bixinayeen maadaama ay baddii iyo kalluumaysigii iyo waddanka ay intaasoo kun oo dooniyood ama maraakiib ay soo gelinayaan hal mar haddana waxaan maqalnay in lacagtuba aysa 1 milyan iyo wax yar ay tahay yeeri lacagta raba in laga qaado arrintaasi miyay jirtaa anigu saan kuugu sharaxay dowladda kuma jirin banaankaa joog sad adigu wax badan aad ka ogaan kartaa sooma may anigu waxaan ku yidhi waxaan soo diyaariyey qaabkii shatiga loo bixin lahayo waxaasoo dhan lacagtaan rabnay inaan ku galno shatiyada annaku waxaan halkii shati 130,000 oo dollar baan rabnay shatigii inaan ku galno wasiir shatiga yara sanad la wasiirkii iga dambeeyay lacag 30,000 ka yar buu shatigii ku gatay markaana shatiyadii badan oo la bixiyey haddii la leeyahay milyan baa ka soo garay milyankaas waxa weeyaan max aan hore inoo taraya ma jiro malaayiin badan baa inaga luntay laakiin waa macluumaadaan banaanka ka arkay dee xog gooniya kuma sheegi karo dee moogtay dowladdiiba kuma jirin laakiin maaragtay sidaa weeyaan waayahay hadda walwal intee la-eg baad ka qabtaa qaabka badda soomaaliya ay u wajahday wixii kaa dambeeyey ama xilliga aada joogtay qaabka ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo maadaama isla shaqaynayeen ay u wajaheen sidee baad u aragtaa waxaan u arkaa runtii in khayraadkeenii lagu tagrifalay anigu murashax baan hadda ahay waad ogtahay xasan haddii eebadmo oo aan ku guulaysto mas-uuliyaddaas tallaabada ugu horreysaan sameynaya waxaan kansal gareynayaa heshiiskii wadamada shirkadihii shiineeska la galay lacag badan xaalufin xoog la nagu dhacday lacag 100 milyan ka badan ma hayo tira laakiin waa qiyaasaya way naga luntay tallaabada ugu horreysaan sameynaya heshiiska waa kansal gareynaynaa markaana waxaan eeganaa qorshihii cusbaa oo wadankeena maraakiib la korjoogto lagu sameyn karo iyo waxay ka qaadan karaan marka waa qorshe dheer ma raba inaan waqtiga laakiin qorshahaasaan rabnaa aad u mahadsantahay arrinta shidaalka ayaa ka dambeysay oo aad og tahay in la yidhi shidaal hala soo saaro haddana muran baa ka yimid kii ugu dambeeyena waa kii wasiirka batroolka cabdirashiid intii uu soo saxeexay madaxweynaha iyo asaga iyo kulli isku qabto ilaa maxkamad la gaaray arrintaa maxaad kala socotaa arrinta soomaali weyn oo dhan waa ujeedaa waa arrin foolxun waxaan nahay wadan madax bannaan qarana dunida laga yaqaan bal ilaah baan kugu dhaarshiye marka aad aragtay madaxweyneheenii iyo ra-iisul wasaaraheenii iyo wasiirkii oo midba midka kale farta ku fiiqaya uu leeyahay ma ogeen wiisla ogaa marka bahadil maanta wadankeena ku dhacay oo kaa ka xun ma garanayo taasi waa ta guud ta labaad wadankan waxaa loo baahnaa oo xukuumaddani ku guuldarraysatay qorshe tafaktiran oo ku saabsan inta aanan shatiyadan iyo inta aanan la bixinin maaragtay shidaaladan xaraashkooda intaan shirkada laga gadin horta waxaa loo baahnaa in shuruudihii iyo diyaargarowgii ka horeeyo dhan in la sameeyo waxaa loo baahnaa shirkadda qaranka ee saliidda ee soomaaliya ama Somali National Oil Company iyada in la sameeyay ahayd dunida shirkad baa shirkad la gorgortan la gasha wasiirka batroolka nin cilmi u leh maaha geologiga iyo petroleumka waa xirfade iyo duni lagu barto 20 sanadood marka isagu siyaasadda inuu dejiyo guud ee khayraadkeena batroolka bay ahayd isagu intuu diyaarad raaco niman ka cilmi badan oo dunida oo dhan yaqaana intuu dhex galo uu waxbaan la saxeexaya dee waxa weeyaan waa ujeedaa waxaagii oo dhan maaragtay ma garanaysid ma malaynaysaa awooddaas inuu keligiis yeelan karo macnaha markaad fiiriso qaabka dowladda ay ku dhisan tahay iyo sida gacanta
oo maaragtay xukuumadda iyo baarlamaankii gacanta loogu hayay markaad aragto wasiirku ma ku dhiiri karaa bay kula tahay inuu keligiis go-aankaas qaato arrintaasi waa arrin markaa maxaad xog hoose ka haysaa taa ma haya laakiin ta guud waxa weeyaan wasiirku waxay ahayd inuu sameeyo hay-adihii iyo dariiqii saxda ahaa ee aan batroolkeena ku gadi lahayn wasiirku waa siyaasadii guud isagaa leh laakiin wuxuu u baahan yahay dad technical oo xirfadla ah oo lawyeraa oo geologist ah oo economist oo financial analyst ah dadkaasoo dhan inuu isagoo la kaashanaya oo markaa yidhaaho qorshihiina guud i tusa oo dariiqii saxeed ma maraysaa marka wasiirku ma aha lawyer maaha waxan ma yaqaano marka isagu waxayd inuu hago oo siyaasadda guud u dejiyo tiina ma sameyn wuxuu galay inuu shirkii intuu maaragtay ugu tago istanbul iyo maqaan maaragtay qol mugdiya mar kale aan kugu celinaya qol mugdiya intuu galay buu heshiis la soo saxeexay waxa weeyaan shirkadii ajnabiga ahayd baa inoo sheegtay tiri wasiirkiini heshiis baan la galay wasiirkeeni xitaa ma sheegin ummadda soomaaliyeedna maaragtay uma sheegin anigu haddii eeba idmo oo aan ku guulaysto anigu xilkan aan u tartamayo waxaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadayaa qol dambe oo mugdi ah oo heshiisya soomaaliyeeda lagu saxeexayaa ma jiro daahfurnaan baa loo baahan yahay isla xisaabtan baa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed waa dad wax garanaya oo loo sharaxo dariiq aan u marano oo aan maaragtay khayraadkaasi xasan waa khayraad bilyan waa dhaafay trillionku waa 1 bilyan baa trilliona waa lacagtii saboolnimada ka saari lahayd ummadda soomaaliyeed marka lacagtaas iyo khayraadkaas wax lagu ciyaaran maaha aayaheenii oo dhan baa ku xidhan marka waxaa loo baahan yahay hay-adihii sharciyadii waxaasoo dhan in la sameeyo dadkana loo sheego marka arrimahaasoo dhan waa arrimaha aan aada walwal uga qabo anigu murashax ahaan oo aan leeyahay dadka soomaali weyn xooggeedu ma oga khayraadkii lahaayeenoo wadankeena barwaaqi iyo saboolnimada naga saari lahaa in laga yaabo dadkeenu iyakaanan ama madax aan diyaarhayn ama fahamsiisaneen inay markaa waxayna ka soo waaban karin weli waxaynagu yaalla nabaradii inooga dhacay wadanka kenya oo hadda rubuc ka mid ah oo baddeenii aan lahayn oo dhan la qaatay $3 bayna la siiyey laakiin rubuc aynaga maqan waa lacag ciiddaa ka badan marka dee dadkii arrimahaas saxeexay iyo dowladihii kale macnaha waxa weeyaan dee waxay u egtay inaan maaragtay inaan weli la fahmin inaan talaabo laga qaado maaha in waxaan u dan leeyahay dad badan la weydiiyo oo ay ku xisaabtamaan oo ay lahaayeen mas-uuliyadda markaad ahayd iyo arrimahaas dhaceen ilan xukuumad baan adigu maaragtay ka ahayd maaragtay madaxdeedii ka ahayd marka arrimahaasi waa arrimaha weli laga hadlay waa ku mahad celinayaa dhibaatada adduunka waad la socotaa meelo badan iyo wadamo badan waa tagtay madaxweyne ama ra-iisul wasaare haddii ay khalad galaan ama corrupt noqdaan ama wasiir uu wax sameeyo dowladda ku xigtaahi waxay baadigoob ku samaysaa khaladaadkii dhacay maxaan ula nahay madaxweyne iyo dowlad la xisaabtama dadkii khaladaadka wadanka ka galay ee soo hogaamiyey arrimahaasi waa arriman sharciyana masiiriya dunidao dhanna dowlad haddaad tahay dariiqaasaa la mara hadda xukuumadda waktigeedu dhammaaday miisaaniyadda sanadkii markaa keentid xisaab xidh waa inaad keentaa lacagtaas sidee loo kharash garay wixii loo qoondeeyey ma lagu kharash garay kharash dheeraada miyaa la galay waxaasoo dhan bilowgii unba 17kii xoogaa aan xitaa xisaab xidhin aan maaragtay buuxin oo wasiir beyle sameeyey laakiin 3 sano iyo 4 ka dambeeyey weli wadankeena xisaab xidhiddii loo baahna oo budget lagama samayn marka waxaasoo dhan nidaamkii dowliga ahaa iyo asaaskiisii way naga maqan tahay garsoorkii baa naga maqan arrimihii ku saabsanaa codayntii hal qof hal cod arrimihii dhaqaalaha wax laga qabanayay wadankeenu maanta maalin uu ka liitaa oo khatar ku jiraa oo uga dhow yahay ma jirto wadankani badbaado dhab uu u baahan yahay oo laga badbaadiyo dhibaatooyin xildhibaanada si lagu soo doorta aad og tahay ayaad hortegaysaa kharash badanna qaarkoodna uu ka baxay haddana kharash doonaya maxaa kuu qorsha adiga anigu aragtidaydu ku saabsan xildhibaanadan hadda lasoo doortay oo fadhiya oo rasmiga ah waxa weeyaan meesha aan joogno baan eegana shalay maxay ahaan lahayd maxaan sixi lahaa waa ka soo gudubnay hadda waxa weeyaan xildhibaanadaas
subxaana wa tacaala iyaku ilaahay maanta siiye xasaanadii wadanka iyakaana fadhiya anigu kalsooni weyn baan ku qabaa si kastaba ha noqdo ha lagu soo doorto inay yihiin dad garanaya ummadda soomaaliyeed waxa u dana waxa ay xildhibaanadaasi maanta ay go-aan ka gaari doonaan wadankeenna ma heli doonaa dowlad runtii dhibaatooyinkan kuu sheegay oo dhan ka saari kara xildhibaanadu dhallinyaro ay xooggooda u badan yihiin xasan saa ula socotid xildhibaanadaas waxaan rabaa inaan xasuusiyo 13 dhallinyaraha baa jirtay aanan cilmi badan lahayn oo aanan haysan xitaa wadan madax bannaan oo qaran ah oo garabka saaraan mayna haysanin dhaqaale ma haysanin iyagoo 13 oo intaa jooga bay maanta madax bannaanida iyo xornimadaan haysano iyo midhahaan cunano waa kuwii dhaliyey kuwaa weeyaan anigu waxaan arkaa in ayna ka liidan xildhibaanadani waxaan aaminsanahay inay yihiin dad mas-uul ah waxaan aaminsanahay dad taariikhda soomaaliya garanaya maanta waxaa loo baahan yahay soomaaliya inay eegaan murashaxiinta oo yidhaahaan dhibaatooyinkan wadanka ku jira waxaan rabnaa isbedel dhaba inuu wadanka ka yimaado markaana ay iyaku taa eegaya ay taariikhda soomaaliya qeyb ka noqon doonaan oo dhici karto xornimo labaad baan u baahanay mar labaad dowladeennu xasanow waa magacuyaal waa ku celinaya mar kale dowladeennu inkastoo qaramada midoobay fadhino aan fadhino waa magacuyaal maxay magacuyaal ku tahay waxa weeyaan ciidan 22,000 ah oo Amazon hadda magac kale loo bixiyay Amtes la yiraahdo baa jooga dhowr iyo 10 sanayna maras haddii aad xitaa amnigaaga iyo xuduudahaaga aadan sugi karaynin dee qaran madax bannaan ma tihid marka arrimahaas waxa la joogaa waqtigii wadankeenu uu noqon lahaa wadan wixii lagu yaqaanay calaamadihii lagu yaqaanay arrimahaasoo dhan waa arrimahan anigu tartamayo soomaali weyn oo dhan ka warqabto nin kasta oo musharaxay wuxuu hadda baadigoob ugu jiraa dhaqaalahaasi oo uu doonayo inuu ku bixiyo sidii loo dooran lahaa ama dowladda hadda joogta ha noqoto ama kuwa hadda la tartamaya ha noqoto ma u malaynaysaa in dhaqaaluhu uu noqon doono kan hagi doona doorashada waa su-aal adag laakiin waxaa isku dayay intii tabartayda aan kaaga jawaabo dhaqaaluhu waa qeyb ka mida oo ma odhan karti dhaqaale saameyn uma yeelan karo doorashada dadkao dhan waa ka dharagsan yihin laakiin dhaqaaluhu markay isugu soo biishooto ma aha waxa dadka xildhibaanadu kuwii hore oo doorashooyinkii hore 12kii 16kii dadku waxay eegaan marka dambe yay u arkaan wadankan inuu u qalmo u hogaamiyo madaxweyneyaal hore aad xasan oo aada uga dharagsantahay nin siyaasadda la socdaa tahay oo lacag badan bixiyey baa jira oo lalahaa dhaqaalay kusoo noqonaya haddana way ku guuldaraysteen marka qeyb wuu yahay kuma odhanayo ma ogtahay dhaqaaluhu ma aha saameyn laakiin waxaan aaminsanahay marka dambe dadku waxay eegayaan qofkan 4 sano ma ku aamini karaa ayaya jiilalkaygii caruurteedii dadkii naga dambeeyey ma ku aamini karaa marka ugu dambeysa taasaan u malaynaya xildhibaanadu inay ku codeynayaan ay leeyihiin qofkani barnaamijku soo hordhigay wuxuu ahaa taariikhdiisa markaan qiimeeyey dadkii murashaxiintii oo dhan qofkeebaan u arkaa inuu wadankan gaadhsiin karo dhibaatooyinkan kasoo hadlaan aan u baahan inaan ku celino yaa ka saari kara marka anigu waxaan aaminsanahay inay marka dambe go-aanku noqon doonaan yaa hogaamin kara go-aanku dambe noqon doona inaad sharaxan tahay inaad tartamayso lacagtii aad bixisay oo hadda aad musharax dhaba tahay oo ku oga laakiin markaad isqiyaasto oo aad tiraahdid waxbaad macnaha qof walba qiyaas uu leeyahay inaad madaxweynaha iyo xilkaas qabato waad isu sharaxday laakiin wax kale miyaa ku wehliyey xasan waxa weeyaan horta dee marka ugu dambeysa subxaana wa tacaala ilaah baa og inaka dadaal baa ina la faray iyo inaad sharaxdid barnaamijkaaga iyo waxaad aaminsantahay oo baarlamaanka khudbadda dadku ka jeedin doonaan waa inay u sheegaan runtii wadankan sidee bay u badbaadinayaan dhibaatada ku jirta macluumaad badan oo arrimaha ku saabsan miidiyaha baan meelo badan u sheegnay ummadda soomaaliya waxaan rajaynaynaa xogtaas iyo macluumaadkaas inay gaadhay xooggeedu xildhibaanada oo markaa dambana ay qiimeyn samayn doonaan oo ku qiimeyn doonaan ay leeyihiin qofkan muxuu qabtay muxuu maaragtay kusoo kordhin karaa wadanka anigu 2 qodob un baan ka odhanayaa in rajadeedu waxay yeelan karto saad uga warqabtid xildhibaanadu
marka ugu dambeysa waxay eegayaan qofkan le inaan qabtaan rabaa xilkan horta khibrad ma leeyahay, dunida ma ka soo shaqeeyey, waxyaalihii hore u qabtay, wax la taaban karo ma la arki karo la odhan karo waxbay iga ifin kartaa in qofkaasi karti leeyahay. anigu saddex waxba baan kuu sheegayaa aan anigu aaminsanahay inay talo fiican ama si wanaagsan sawir ka siin karto ama u bidhaamin karto inaanahay qof u qalma oo hawshan ka soo bixi kara. ta ugu horeysa waxa weeyaan anigii kuu sheego waxaan ku wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badana anigu xilkaygii waxaan uga tegey anigoo ummadda Soomaaliyeed xoolaheedii iyo dhaqaalahoodii iyo baddoodii iyo kheyraadkii ku jiray dartood baan xilkaygii uga tegey. waxaan u maleynayaa inay taasi tusi karto in aanan anigu jagado muhiim ahaan ee ummadda Soomaaliyeed danteeda iyo masiirkeeda inay muhiim tahay. su'aal aan dhamaysta xasan ii kaadide oo ku dhameeya saddex baan ku yidhi taasi waa midda labaad saad uga warqabtid anigu guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada waa 12 wasaaradood baan shir guddoonkooda ahaa xoghayntooda ahaa. marka anigu waxaa ninkii deyn cafiska aniga wasiir Beyle hay-adda sanduuqa lacagta ee IMF-ta door weyn baan ka ciyaaray waana xogaad ogtahay dadku dhanna waa ogyahay waxaan ku faanayana maaha arrintaana door weyn baan ka ciyaaray deyn cafiska ku saabsan. arrinta saddexaadna waa arrintan kuu sheego aan ku yidhi waxaan ahay wasiirka kaliya ee batroolka weli ma sameyn oo kalluumaysiga oo 5 maamul goboleed madaxweynayaashoodii u keenay qanciyey iyo gobolka Banaadir Allah naxariistay Yariiso markuu joogay. marka anigu intaan u soo bandhigay qorshihii aan doonanay anigu waxaan kasban karaa inaan ka dhaadhicin karo madaxdii gobolada in wadankeena u baahanay inaan isu nimaadno oo aan heshiiskan galno. taasina waxay tusaale u noqon kartaa haddii ilaahay idmo aan fursadda ku guuleysto inaan dadka Soomaaliyeed iyo gobolladeena maanta maalinay midnimo uga baahannahay uga baahi badannahay ma jirto. waxa aan rabaa anigu aan aaminsanahay inaan dadka isu keeni karo oo tafraaruqeena aan soo yareyn karo. saddexdaa arrimood waxaan aaminsanahay inay noqon karto saddex wax oo dadku u arki karaan nin mas'uul ah oo xilka inaan qaban karayo. warkaas quruxda badan oo aad sheegaysid xildhibaanada aad aragtay dad qiimeynaya ma kuula egyihiin? dee waxaad leedahay waxaanan ogeyn wax ka dheh dee ma oga maskaxdooda kuma jiro. waxaan ku yidhi anigu dad Soomaaliyeed oo aniga ku yidhiyo waxaan aaminsanahay baan ku yidhi maanta wadankooda dhibtu ku jira waa ogyahay. waxaan ku yidhi 13 dhalinyaro oo SYL oo ka cilmi yara oo ka dhaqaale yara oo aqoonin. marka waxaan aaminsanahay anigu kalsooni baan ku qabaa ee dhalinyaradaas dhalinyarada ayaan ku oranaynaa iyo ka u badan iyo dadka kale oo badan oo murashaxiinta ee jeeda xildhibaanada oo dhan waa dad fahamsiisan. marka anigu waxaan ahay nooca dadka aaminsan in fursad la siiyo. marka adigu ka sokoowey musharaxiin badanaa waxaa la yidhahdaa balan b ay leeyihiin day tooda waayaan balan b ay leeyihiin oo macnaha qof kaley leeyihiin. adigu dadkaas ma ku jirtaa? anigu waxa weeyaan hadda xoogayga iyo aragtideeda iyo meeshaan u jeeda anigu inaan isku dayo inaan intii tabartay xildhibaanadan sharafta leh inaan u sharaxo waxaan aaminsanahay waxaan u taagnahay waxaan soo qabtay. marka wixii intaa ka dambeeya maaragtay haddii siday ilaahay u qoray ay u dhacdo dee qof kasta marka dambe haddaadan noqonin haddii kaleba dee wax maaragtay waad eegi kartaa. qof kastoo qabta waa lala shaqeeyo. waxa guud ahaan waan aqaana madaxdoo dhan waa dadaan dowladda ku wada jirna aan aqaano oo rag akhyaar oo aan isnaqaano weeyaan. marka waxaan aaminsanahay giddigood inay yihiin dad aan wada shaqayn karno oo maaragtay dad mas-uula baan u arkaa. waayahay aad baad u mahadsan tahay. gabagabadii adigoo aada u mahadsan 15 bisha insha allahu tacaala waxaa la rajaynayaa in doorashada dhacdo madaxweyne oo meeshaasi ka soo baxo. rajo wanaagsan ma ka qabtaa in dowlad wax ka bedesha ama adigu ku guuleyso ama qof kale ha ku guuleystay macnaha nidaamka la bartay oo hadda waad ogtahay oo hadda 1 sano iyo bar ayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dib loo dhigay doorashadii tii hore 6 bilood loo dhigay in waqtigeedii doorashadu ku dhici doonto ma malaynaysaa? arrintaas muddada sanadkii barkoo dheeraadka lagu daray waa arrin khatar. dunida oo dhan dastuurka waa in lagu qoraa maalin baa la cayimaa maalintaasi waa maalintii doorashadu dhacsay. waxa aan rajeynaynaa inay maanta tahay tii ugu dambeysay doorasho dambe oo ummadda Soomaaliyeed ku niyad jabaan. waxaan anigu taageerayaa aan aaminsanahay haddii ilaahay fursaddaana siiyo iyo ciddii kale wadaba wadankani ma xamili karo in mar dambe
wixiina soo maray oo maaragtay aad garanaysaan aan rabay inaan ka hadlo inaan ku noqono wadankani wuu istaahilaa wax ka badan buu istaahilaa waa wadan ilaahay siiyey khayraad waa wadan ilaahay siiyey dadka ugu ganacsatada dunida ugu maaragtay firfircoon ilaa South Africa ilaa Central Africa meel kasta jooga dadka Soomaaliyeed waa dad haddii dowlad wanaagsan oo sharci leh kala dambeyn leh maxkamaduhu shaqeeyaan amniga la sugo waa wadan noqon kara wadamada Afrikada bari iyo Afrika oo dhan dhaqaalaha ugu waaweyn buu noqon karaa waa ku kalsoonahay waana arrin suuroobi karta waayahay aad baad u mahadsan tahay waraysiga intaas ku soo gabagabaynaynaa waxaan u mahad celinayaa fursadda uu na siiyey cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi oo isagu ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya isla markaana qayb ka noqon doona sodomeeyada isdiiwaan gelisay ee doonaysa inay stage-ka tagto loo codeeyo waan ku mahad celinayaa insha allahu tacaala waana kaaga mahad celinayaa waraysigan inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan kaloo u mahad celinayaa cabdiraxiin caylaawe iyo macallow ayaan u mahad celinaya iyo farsamo yaqaanada kale ee telefishinka SMS tan kulanti dambe sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu